kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa dib u soo celisay xiisaha ay u qabto xidiga Mauro Icardi kadib ka haritaankii kooxda Inter Milan tartanka UEFA Champions League ayaa albaabka dib ugu furaysa suurtagalnimada in Mauro Icardi uu dhaqaaqo kooxda Madrid inkastoo bandhiga xidigan uu ahaa mid wanaagsan kadib markii uu 4 gool dhaliyay 6 kulan oo uu ciyaaray hase ahaatee iminka ayaa waxa uu ku qasbanaan doonaa inuu aqbalo ka ciyaaritaanka koobka Europa League waa haddii uusan xiiso u qabin inuu ka hawagadisto kooxdiisa Inter Milan ayaa kaga dhamaysatay kaalinta saddexaad groupka B halka kooxaha Barcelona iyo Tottenham ay u gudbeen Champions League wareegiisa 16 kooxda Nerazzurri ayaa u dhaadhacday ka qaybgalka tartanka Europa League kadib markii ay ku guuldareysteen inay ka adkaadaan kooxda PSV ciyaar ka dhacday garoonka San Siro dib u dhacan ayaana dhabarjab ku noqon kara kooxda xilli muddooyinkii la soo dhaafay si weyn loola xiriirinayay in kabtankooda uu boqoli doono garoonka Santiago Bernabeu Mauro Icardi ayaa maalmo yar ka hor ka dhawaajiyay waxa aan doonayay in Inter aan dib ugu soo celiyo Champions League taasina waa aynu ku guulaysanay hadda waxaan rabaa inaan bilad kula guulaysto kooxdan ma dareemayo inay tahay waqtigii saxda ahaa ee aan tegi lahaa sidaasi waxaa sheegay xidiga reer Argentina hase ahaatee waxaa iminka suurtagal ah in Mauro Icardi uu ka fiirsado go'aankaasi kadib markii kooxdiisa Inter Milan ay isaga hartay gabi ahaanba tartanka UEFA Champions League ha mogaanin fadlan inaad subscribe garayso mahadsan